xisbiga talada Somaliland haye ee Kulmiye oo ilaa bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan ku hawlanaa dhiirigelinta dhalinyarada ku hawlan xirfadda kubadda cagta ayaa qalab ciyaareed oo dhameystiran gaadhsiiyay ciyaartoyda ku dhaqan gobolka Sanaag waxaana lagu kala wareegay qalabkan garoonka kubadda cagta ee daalo ee magaalada Ciyaareed gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Kulmiye gobolka Sanaag Xamse Maxamuud Xidig iyo gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga Kulmiye ee gobolka Sanaag Cabdinaasir Axmed Xaaji Aadan ayaa ku xog waramay ujeedada deeqdan looga gol leeyahay xisbiga Kulmiye oo ku caan baxay inuu tayeeyo markastana isbarbar taago dhalinyarada iyo khaasatan ciyaartoyga dalka waxaan maanta halka doonayaa inaan qalab isugu jiro kubado koobab bilado iyo dreysoba qalabkan uu kala baxaya 8 dreys oo loogu tala galay degmadan Ciyaareed in la siiyo ciyaartoyga ka ciyaara iyo 4 dreys oo loogu tala galay degmada Gaadhsiiyay sida ku cad barnaamijka xisbiga siyaasadda xisbiga isla markaana ka go'an gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi in la jeeyo lana tayeeyo dhalinyarada Somaliland ayaa xisbigu wuxuu go'aansaday barnaamijkan looga faa'iideysan lahaa in dhalinyarada loo tayeeyo xagga sportiska waxbarashada isdhexgalka bulshada waana sababta keentay in gobolada Somaliland oo dhan koobkan xisbiga Kulmiye oo ka bilaabo isla markaana degmada Ciyaareed iyo degmada Gaadhsiiyay aanu maanta qalabkan ku wareejino muhiimadda ugu weyn ee koobkan uu leeyahay ayaa waxa ay tahay in dhalinyartu ay noqdaan kuwa isku xidhan saaxiiba had iyo jeer target garaya iyagu dantooda isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naalaye Axmed ayaa deeqdan ka gudoomay madaxda xisbiga Kulmiye ee gobolka Sanaag sida ay soo maamuleen xisbiga Kulmiye iyo dhalinyartiisa iyo maamulkiisa sareba waanu ka gudoonay si wanaagsan waxaan u maamuli doonaa sidii sportsku ay ahaan jireen xaq soor cadaalad in nolol ku yimaado halka maanta waxa ka wada ciyaaraya dad cadaalad isugu keenayso tababaraha aan magacaaban doono gobolka iman doona oo soo xulan doono iyo bahda Kulmiye ee qalabkan soo gaadhsiisay dhalinyarada ciyaartoyga gobolka Sanaag aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa maskaxda caafimaadka qabtaana oo jirka caafimaadka qaba ayay ka timaadaa xisbiyadana xisbiga Kulmiye waligiiba dhalinyarada uu jajabnaa waxgarad xildhibaano odayaal iyo ciyaartoy hore oo reer Sanaag ayaa murashaxa madaxweyne xisbiga Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi uga mahadnaqay sida uu had iyo gooraale dhalinyarada u dhiirigeliyo